magaalada Cadaadad ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta waxaa laga daafuray shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug kaasi oo looga hadlayay dastuurka Soomaaliya. Dhalinyaro iyo haween ka soo qayb galay kulankani ayaa waxa ay ka doodeen waxyaabaha loo baahan yahay in xilligan lagu soo kordhiyo dastuurka Soomaaliya. Furitaanka kulanka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaadad Nuur Yarow Xayle, gudoomiyaha dhalinyarada Caruuse Macalin Maxamed iyo agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi asagoona sheegay inay muhiim tahay in dhalinyaradu ay ka qayb galaan kulanka looga doodayo dastuurka Soomaaliya. Dib-u-eegista dastuurka ee dhalinyarada haweenka si ay mataqaanaa dib-u-eegistaas xog fiican looga wada qaato lana wada ogsoon yahay dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada oo dhan ay ka wadaan waxaan maleynayaa wax badan ay waxa la isticmaalay in si gaar ah ay wax uga soo baxaan in dib-u-eegista dastuurka waxay waana ogtihiin waqti dheer oo socda ilaa xilligan hadda ma uu soo dhamaan oo xilliyo dhamaad doona horta Ilaahay baa og laakiin in la wada ogsoon yahay laga wada qayb galo xogna laga wada qaato hadba meeshu marayna ay dhalinyarada iyo haweenku ay aad u og yihiin waxaan noo suuragelinayaa in fikir ay dadkooda og yihiin la mataqaanaa la socod la sameeyo dhalinyarada iyo haweenkuba kaalin uga jiraan xoog leh in dalka horumarintiisa iyo dastuurka laftirkiisa dib u eegistiisana ka qayb qaataan inay seminaarkan u furto wasaaradda dastuurka Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda federaalka iyo kulliye hay'adaha taakuleynaya aadan ugu maartay u mahadcelinaynaa waana runtii muhiim in dhalinyarada iyo haweenkuba qayb ka noqdaan dastuurka dhalinyaradu waxay ku sheegi karaan marka afti la qaadayo dastuurku wuxuu u baahan yahay afti in la marsiyo oo dadweynaha dhan la weydiiyo markaas wuxuu noqonayaa dastuur dadka maagta muxuu ahaay lagu dhaqmi kara wadanka dhan hadda laakiin waa ku meel gaar sanaamisanahay. ugu dambeyntii kulanka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Galmudug Sakariya Maxamed Axmed. 75% aday habla yihiin aday rag yihiinba bulshada Soomaaliyeed ay yihiin laf dhabarna u yihiin dastuurka Soomaaliyeedna xuquuqaad badan oo uga maqan yahay dhalinyarada waxaa laga maarmaan noqotay wasaaraduna ay muhiim u aragtay in bulshada la gaarsiiyo ka wada qaybgalka iyo wada tashiga ku aadan sidii masiirkooda iyo xuquuqaadkooda ay uga hadli lahaayeen uga doodi lahaayeen dastuurkan la gabagabeynayna ay uga darsan lahaayeen runtii baahiyada ayaga ah waa kuwa muhiim ah waa kuwa u baahan in si fiican oo wada jir ah la iska qayb qaato haday tahay wasaaradda haday tahay ururada bulshada qayb siiba gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka wasaaraduna arinta waxay u aragtaa inay tahay arin laf dhabar u ah dadaalka loogu jiro in xuquuqda haweenka iyo dhalinyarada laga dhaxlo dastuurkan soo socda. kulankani maanta laga furay magaalada Cadaadad ayaa waxa uu socon doonaa 3 bari ee soo socota. Cismaan Maxamed Axmed, telefishinka Saab, magaalada Cadaadad.